waxaanu fadhinay gabadha caanka ah ee la yidhaahdo Xaliimo Khaliif Magool gurigeeda. runtii bulshaanu ahayn waanu badnayn ayaa Xaliimo Khaliif waxay gashay maqsinkeedii hurdada. kadibna anigu waxaan ka mid ahaa raggii goobta fadhiyay. way ii yeedhay waxay tidhi markii aan u tegey bal waraaqdan iyo akhri. waraaqdu far carabi bay ku qoran tahay, qalin cas bay ku qoran tahay. intaanan Xaliimo waxu maqashiin horta aniga waraaqdii hoos u akhriyay. wax yaab leh baa igaga soo baxay. waraaqda waxaa soo diray nin Suudaaniya. Xaliimo u soo qoray. Xaliimo aad u jecel yahay. waxyaabaha runtii ninkaa ku dheeraaday ee maaragtay uu ka seexan waayay waxaan u malaynayaa unkoo waxaa ka ahaa codka Xaliimo Khaliif. ujeedooyin fara badan ayaa waraaqda ku qoraa, laakiin balaan ka soo qaato inta halka kan looga baahan yahay. hadalkiisii markuu soo gabagabeeyey ninka waraaqda soo qoray dalka Suudaan ka soo qoray wuxuu yidhi kalgacaylka dartii ha u qaadan khadka cas waraaqda ku yaala inuu yahay inaan qalin cas oo iibsaday oo waraaqda kugu soo qoray. Magoolay ma rumaysanaysaa inaan xididadayda mid daluushay oo aan dhiig ka soo qaaday oo aan qalin ku shubay oo aan kadibna waraaqda kugu soo qoray. cajiib. hadda waxba ku dardari maayo. Xaliimo Khaliifna way nooshahay. runtii waa sidii ay sheekadu galabtaas ay u dhacday. cajiib. waa yaabay. anigaa isweydiiyey oo bahalku ma heerarkan u gaadhaa oo ma siday u suura gelaysaa in xididadaada mid ka mida la daloosho dhiig laga soo qaado oo talow qofku markuu heerkaaba gaadhay sidaa yeelo sidee buu u qiimeyn karaa qofka waraaqda loo soo qoray oo talow ummadeennu halkay ka joogtaa bal bahalka dhinacyadiisa kala duwan in la barto ama daacad laga noqdo ama la cadeeyo oo la muujiyo inay dhabkaa tahay. yani maxaa lagu rumaysan karaa qof marka uu yiraahdo qof waan ku jeclahay muxuu qofka kale ku rumaysan karaa inuu jecel yahay? maxaa cadeyn kara weeyaan su'aashu. hees tuduc ama laba tuduc oo heestan ka mid ah ayaan beriga ka tiri warqada iyada ah, laakiin waqti dambe oo aan arkay mawduucaasi inuu aad xiisa u leeyahay ayaan kordhiyey. hadraawi taasi waxay ahayd sidii ay kuugu dhalatay heestan la yaabka leh. jacayl dhiig ma lagu qoray, weli dhuux ma loo shubay, qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha, dhabanada cad laga jaray, hadalkii ma lagu dhigay, xinjiraan isdhalan rogin, midabkeedu dhiin yahay, laga dhuray halbowlaha, weli dhiil ma lagu shubay, laba mays dhansiiyeen sida dhayda xoolaha, dhagdhag ma wadaageen, weli laba isdhaarsaday, berya dhacan nasiibiyo dhulku kala cilaalaa, subax dharabku kowsaday, dheedaduna cudoon tahay, cidla aan dhirmooye wax dhaqaaqayaa jirin, jabaq ma isku dhaadeen. laba qofoo aada isu jeclaayoo waayuhu kala kaxeeyeenoo kala tegayoo laga yaabo inuu ninkii sidii caadadu ahaan jirtay uu dhoofay, tacabiray, meel kale u kacay. gabadhiina isagii markay arki weyday ay ka irdhowday dadkii kale iyo guryihii, kadibna ay baydaday, hawdka iska gashay, ugaadha ka mid noqotay, weheshatay cidlada iyo foorida galoolka iyo bahalaha amtooda. yani ma samaysatay degaan cusub iyo saba cusub iyo duni cusub iyo saaxiibo cusub. kadibna muddo dheer ka bacdi iyadoo gabadhii berigaa ay cid ugu dambaysay
inankii ma soo noqdayoo halkii ugu dambaysay ma yimiyo ma ka waayay gabadhiyo ma waraystay cid ma weydiiyo ma lagu yidhi maalintii aad dhaqaaqday baa noogu dambaysayo tilmaan ma weydiiyey dhinaca ay u dhaqaaqday markii ugu dambaysayo jihadii ma loo tilmaamayo halkaa isaguna baadidoon ma ka galay dhul hawda oo cidla ah muddo midba dhinac ma kaga jiray kadibna maalin maalmaha ka mid ah goor subax oo xali roob da-ay oo dharabku biyuhu weli ay ku dul fadhiyaan ciidda oo dhidadu ay doogga iyo caleenta saaran tahay gabadhiyo iskeed isaga socota oo intii ay tiqiina mooye ay hawdkan iyo cidladan ku baratay mooyaane cid kale filaynin dabadeeda sanqadh ma ka dhaadi ma istidhi waa bahal ma jalleecday mise weli laba isdhaarsaday beryo dhacan nasiib iyo dhulku kala cilaalaa subax dharabku kowsaday dhedaduna cudoon tahay cidla aan dhirmooye wax dhaqaaqayaa jirin jabaq ma isku dhaadeen kulankii dhabta ahaa riyo dhiifi keentiyo dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan dhowr jeer ma silileen afdhabaan dhabjamashada ma ka dhoofay hadalkii bal dhawaaqna kay tahay dhihiddii ma waayeen ma ka dhabaqday xaajadu dib bay eegtay mise waa inankii ayaan darrada dhacday waxay ahayd in labadoodii midna hadal ka soo bixi waayey uu qofka kale kula hadlo ama ku bariidiyo ama ku salaamo ilma dhalatay xiisuhu sida dhibic mahiigaan ma ka qubatay dhaayaha ma ku qooyey dharkoodii naxariis ma dhidideen iyagoo dhan qalankii dheeldheeli mooye dhegna aanay kaga jirin kolba erey dhexroorkiiyo dhumucdii ka maqan tahay dhidfinaya keligii kadib 10 dharaarood carabkiiyo dhan xanagii dhirin dhiris ma ku heleen dabeedna 10 maalmood bay ku qaadatay inta labadii qof uu hadalihii ka soo baxo oo weliba hadalka 10 cisho ka bacdi ka soo baxayna aanu ahayn mid hadal buuxa aanu ahayn hadba erey barjaban ama erey maroora iyo erey aan isku xidhnayn markaa dirqi 10 cisho ka bacdi intii markay ku qaadatay inay hadlaan dabeetana erey marba erey aan sugnayn جعليك ملغو قري يريدوح ملو شبيه قبل كان تدبر كيو موضيغي سيدها جعليك ملغو قري يريدوح ملو شبيه قبل كان تدبر كيو موضيغي سيدها دابا نعزعب لك الشري هذا الغناء ملك بغي دابا نعزعب لك الشري هذا الغناء ملك بغي انكران اسدلن فغل مذكيد وديني احي لقد ريه البلعها والبير ملك بغي انكران اسدلن فغل مذكيد وديني احي لقد ريه البلعها والبير ملك بغي أغلبو ما يسدن سيئين إذا داي نحورها